intii ciidamadii sida baan ugu dagaalamayeen bartamaha qaaradda Yurub dagaalkii koowaad adduunka waxaa jiray cadow qarsoon oo dilaa ah isagoo baabiyay in ka badan 50 milyan oo qof ah waxa uu ahaa cadow aan indhaha bini'aadamku arki karin hubka bini'aadamku aliftay waxa uu gubi karaa jirka bini'aadamka oo kaliya balse kani waxa uu si toos ah u laayay dadkii ku noolaa adduunka oo idil magaalooyinka qaarna 90% dadkii ku noolaa waa uu baabiyay dagaalkii koowaad intii uu socday waxa daatay dhiig badan isagoo sida badaha iyo wabiyada u qulqulayay waxa la isku adeegsaday hub cusub oo aan dunida horay u soo marin sida taangiyada badaha quusa diyaarado iyo hub kiimikaad taas ay tahayna waxa ku nafwayday 16 milyan oo qof ah isagoo 4 sano socday halka cudurkani uu baaba'shay 50 milyan oo qof ah isagoo 9 bilood kaliya socday cudurkani ayaa loogu magac daray the influenza epidemic amaba hergebkii 1918 hergebkani ma ahan wax dadka ku cusub sababtoo ah waqti laga joogo 2500 oo sano ka hor Hippocrates oo ah فيلسوف غريق ayaa xusay cudurkani isagoo calaamadihiisa si sheegay cudurkani wuxuu faafay marar badan markii ugu dambeysayna waxa ay ahayd 1889 isagoo 1 milyan ka badan laayay markii laga soo laabtay dagaalkii koowaad ayuu dib u soo laba kacaleeyay 50 milyan oo qof ahna waa uu dilay meel walba oo dunida ka mid ahna waxa ku faafay meedka dadka cudurku wuxuu ku soo baxay laba wiji dabayaaqadii gugii 1918 wajigii koowaad oo loo yaqiinay qandhadii 3 maalmood ayaa soo baxday dhimasho yar ayaana jirtay waana laga soo kabtay maalmo kadib balse markii cudurku mar kale soo baxay deertaasi aad buu ugu sii darnaa saynisyahanada dhaqaatiirta iyo saraakiisha caafimaadka way garan waayeen maadaama cudurku uu diiday daaweyn iyo xakameyn dadkuna saacado ayay u dhimanayeen maalmo yar gudahoodna caalamkii oo dhan waa uu isdhiibay qof walba sanbabkiisa waxa buux dhaafinayay dareero wayna ku adkaanaysay in uu neefsado ilaa iyo ugu dambeyntii uu dhinto xanuunkani wuxuu aad u laan jiray waayeelka iyo ilmaha halka ay ka badbaadi jireen dhalinyarta wuxuu aad u asiibay 25% dadka ku dhaqan Mareykanka halka uu burburiyay rajada laga qabo ku noolaanshiyaha Mareykanka haddaba halkuu ku dambeeyay cudurkani sidaas loogu badbaaday cudurkani sidaan u dabargooyay dadka bini'aadamka ayaa lagu guul dareystay in daawo loo soo saaro culimada sayniska marar badan waxay isku dayeen in ay xakameeyaan balse way ku guul dareysteen ugu dambeyntiina sida coronavirus ka camal isaga ayaa iskiisa u baxay haddii aad intaan inala soo gaartay aad ayaad u mahadsan tahay ugu yaraan waxaad isku daydaa in aad muuqaalka inoo share gareyso kanaalkan aad subscribe saaro aad ayaadna u mahadsan tahay